waa qaybtii 13aad qisadii la magac baxday caashaqi hooyan waayay hormuud baa u soo dhacay. Muxudiin isagoo ka labalabaynaya ayuu fariinta Hani loo soo diray kala furay. Wuxuu bilaabay inuu aqriyo, waxayna u qornayd sida tan: waan ku salaami walaal Hani, qofka fariintan kuu soo qoraya waa Axmed walaalkiis, Salmaan ayaa la idhahaa. Abbaaye xalay Axmed wuxuu rabay inuu kuu imaado, aniga xitaa ayaa soo raacay, balse nasiib xumo innagoo meel dhexe soo marayna, gurigaagana u soo socna, tuugo ayaa jidka noo gashay. Axmedna waa la dhaawacay, haddana isbitaalka Agaqaan ayuu yaallaa, ee sidaa ula soco walaal. Muxudiin markuu intaas aqriyay, neef weyn ayaa ka fuqday, wuxuuna niyeystay in culays badan laga kor qaaday. Wuxuu niyadiisa ka dhaadhiciyay inuu ka faa'iideysto kala shakiga iyo xaaladda adag ee soo wajahday Axmed iyo Hani. Fariin jawaab ah ayuu ku celiyay, wuxuuna u qoray sida tan: walaal waan ka xumahay, laakiin sababta aan Axmed xalay saqdhexe u balamiyay waxay ahayd, haddii aan kuu sheego, waxaan rabay inaan soo afjaro xiriirkeena. Aabbahay oo Soomaaliya jooga ayaa nin i siiyey, guurkeygana waa la qabanqaabiyey, ee fadlan si deggan ugu sheeg Axmed markuu soo naaxo inuu iska kay iloobo, welibana uu i soo raadin. Salmaan isaga laftiisa fariintaas markuu indhaha mariyey, aad ayuu u qaracmay. Markuu eegay xaaladda uu walaalkiis Axmed ku sugan yahayna, ilmo ayaa ka soo daadatay. Isla markii waxaa soo naaxay Axmed, wuxuuna arkay Salmaan oo ilinta iska tiraya. Abbow, waan ku dareemi karaa, dhibka i gaaray ayaad ka xun tahay, laakiin wax ii qoran ayay ahayd. Soomaalina waxay dhahdaa, ku qabataa iyo qadar alle waa la isku qaataa. Waa Ilaahay mahadiis haddaan noolahay, ayuu Axmed dhahay. Axmed ileen waa naf wax jecele, wuxuu Salmaan ka codsaday inuu taleefanka Hani garaaco. Salmaanow abboowe, Hani way i sugaysaa sow ma ogid, qalad inay ii fahantana ma rabo, fadlan taleefankeeda garaac oo xaaladda aan ku suganahay u sheeg, ayuu dhahay. Salmaan oo ka walaacsan arrinta Axmed ayaa go'aansaday inuu ka qariyo sida amuuruhu isku beddeleen. Axmedow, Hani waan wada hadalnay, ma rabin inaan ka nixiyo iyada. Hadday ogaato inaad isbitaal gashay, waxaan ka cabsaday inuu wadnuhu istaago. Waxaan u sheegay inaan howlo shaqo u baxnay, ee niyadaada khayr u sheeg, iyadana way wanaagsan tahay. waa dhextaal kooban. qisadan la magac baxday caashaqi hooyan waaye hormuud baa u soo dhacay, oo ah mid dhab ah, waxaa xuquuqdeeda leh, faafin kara, mas'uuliyaddeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waaye arag. beejkan ku taxnaa oo like saar, qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. Muxudiin iyo Hani waxay gaareen airboortka Jomo Kenyatta. Saacad ayaa ka dhiman xilliga ay diyaaradda cagaha dhulka ka qaadi lahayd, una aanbabixi lahayd magaalada Eldoret. Hani waxay gudaha u sii gashay howl weyn oo diyaaradda lagu sugo. Muxudiin dib ayuu ugu celiyay taleefankeeda, iyadoo aad u murugaysan ayay weydiisay: Muxudiin walaal, Axmed saaxiibo ayaa tihiin, maxaan ka helay oo uu sidaan iigu galay? Abbaaye horta aan ku soxo, warbixin qaldan ayaa lagu siiyey. Axmed keliya isku iskuul ayaan nahay, ee mar walba isma aragno, ayuu dhahay, isagoo u raaciyey. Laakiin abbaayo, waxaan la yaabanahay, dumarka ragga horay u soo guursaday maxay u jecel yihiin? Hani oo warkaas laf dhuun gashay ku noqday ayaa ku dhahday: warka ha ii laalaabin walaal, ii kala cadday, maxaad ka wadaa? Abbaaye, adigoo xaaladdan ku sugan ma jecleen inaan kuu sheego arrintan. Axmed miyuusan kuu sheegin inuu horay u soo guursaday? ayuu Muxudiin dhahay. wallaahi wax iima sheegine, ayay Hani la soo booday. dhowr sano ka hor gabar Jarmalka ka timid ayay islii isku barteen. guurkoodii kadib waxay u xaraysay leen, balse way u suurageli weysay inuu baxo. gabadhiina wuu furay, ee ninkaas iska ilaali abbaayo, ayuu Muxudiin dhahay, isagoo sheekadaas beenta ah ka damacsan inay Hani u qaaddo Axmed naceeb.
hani oo markii horeba tacsi u socotay ayaa ishayn kari weyday, ilmo ayaana ka soo qubatay indhaheeda. in yar kadibna diyaaraddii ayaa timid wayna raacday. 7 maalin ama isbuuc kadib aaska ayeeyo, hani waxay qorshaysatay inay maalmo kale guriga eedadeed sii joogto. gabar eedadeed dhashay oo Ifraax la dhaho ayay sheeko wadaageen, aad ayayna isugu baxday sidii dad muddo badan asxaab ahaa. Ifraax waxay kuleej ka dhigan jirtay Nairobi, ilaa xad way garanaysaa nolosha ka jirta xaafadda Islii. hani waxay uga sheekaysay waxay Islii kala soo kulantay muddadii ay joogtay dalka Kenya, iyo sida quruxda badnayd ay isku barteen jaceylkeedii Axmed. kadib Ifraax ayaa ka codsatay inay sawirkiisa tusiso. hani qalbijabkii ku dhacay darteed sawiradii ay Axmed ka haysatay oo idil way wada gubtay, laakiin waxay heshay sawir uu hadda ka hor messengerka uga soo diray. alla abbaayo, wiilkii aad ii sheegaysa makana Axmed sow ma ahan magaciisa, ayay Ifraax dhahday. la soco qaybaha kale. qaybtanse maxaa cashara oo ka baran karnaa? hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo had iyo jeer, halkan uga wac oo meeshan dheh. ku xirnow page-ka Axmed Cabdikariim waaye arag, siina sheer gareeya.